الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما هذا سبحانه وتعالى waxaan maanta halkan idinku yeernay waxa weeye in badan baanu aamusneen oon islahayn waxa Soomaaliya ku maamaada gamca geli jiro hoos baa loo dhaqaa doorashadii wanaagsaneed ee shacbigeenu si fiican u qaleen haka daba geenina xumaan adduunka niyad jabisa iyo shacbigeena hadda waxaa la yidhi rati ninkii lahaa uu dabada haya ma kaca baa la yidhi maanta guusha aynu gaadhnay sumcadda aynu helnay shacbigeena footeeyey isbeddel u footeeyey waxaa moodaa inuu madaxweynaha Muuse Biixi uu dalkii sumcadiisii iyo wadajirkiisii iyo horumarkiisii uu dabada hayo markaynu taariikhayno ficiladu sameeyey Muuse waxaa ka koobaa komishankii ayuu gudoomiye ku-xigeenka ka dhigay laba shakhsi oo isagu soo magacaabay waanu iska dulqaadanay xasbuna allahu nicma wakiil baa niri wuxuu ku xigsiiyey agaasimihii guud ee komishanka oo isagu tartan ku soo bixi jiray aan magacaabi jirin ayuu madaxtooyada ka keenay iyadana waanu iska aamusnay wuxuu bilaabay in musharaxiintii markii loo hadhub qaaday in musharaxiintii aanu sharaxnay ee beeshii ka soo jeeday ee potentialka oo qaarkood haystaan sinjiyad shisheeye inuu xabsab kala daalay kuna qasbay inay tanaasulaan waanu soo xishoonnay ilaa inta doorashada aynu heshiinay waxaan doonaynay inay doorasho noo dhacdo bilaa buuqi wuxuu doona ha sameeyee aanu hirgelino uun bigger pictureka inay doorasho dhacdo oo baarlamaanka 15 sano ku jiray bilaa sharciga taxku waxa gaalo yiraahdaan tax ayaa suuqintu ay ka active tahay si loo bedel lahaa guurtidaas ka fadhiisatay ee dhaxalka ah ee dhaxalkii labaad maraysa kii hore dhintay kii kama dhintay ee constitutionka in loo bedelo si loo tartiib geliyo executive-ka isna saqiiray intee qof ba qaadan ilaa maalintii la doortay diyaaradii teego qaadan weydo faleedku iska baabaa aan kicinba الحمد لله رب العالمين وكو guulaysanay dulqaadkaasna ilaahay maadi weeye terrorist baan keenay hadda wuxuu bilaabay madaxweynuhu kuwii noo soo baxay ay isku beesha ahayn ward markii hore diiday inuu sharco uu qaarku ku yidhi waxaa tiijilibiyeen oo ma soo baxaysan anagu qaadaneen bisiga u qabsanay in markay soo baxeen farta ugu yeelay reer ahaan u ka haystay doorashadii asxaabtu gashay ee sidan 2006 u galay kulmiyey oo ciidan sameeyay isbahaysiga uu ka bedelo qabiil buu bedelay qabiil ayuu bedelay aniga iyo Cabdiraxmaan ayuu oo laba xusbiyadu reer ma ahaane waa lagu wada jiraa beelaa reer Soomaaliya ayuu xagarad galaanta ku leeyahay dadka garsha gaabada ahaa laba noor isku reera isku kay tagay wada maxay halkaas u maraya maanta waxaas dhan waxaan islahayn ha ka daba geynina wanaagii adduunka maqlay iyo shacbigeena niyada wanaagsan ee wada qabsaday ee footay si fiican u qoday in la yiraahdo war kuwaas Soomaaliya ma dhaanto waa kuwa iyagu hays durbays haysta waxaan leenahay madaxweynaha lacagtii shacbiga islaanta tamaandhada haysata hilibka iibinaysa
ninka baabuurka wata een waddo haysan ee road taxation laga qaadayo islaanta aan haysan masquul haysan oon har haysan ee cashuurta laga qaadayo lacagtii ummadda masaakiinta ayaa maanta lagu iibsanayaa xildhibaanadii lagu iibsanayaa waa nasiib darro in cashuurtii ummadda lagu isboolgareeyo lagu xumeeyo lagu dhaqan xumeeyo xildhibaanadii u soo baxay ee shacbigu doorteen waddadooda laga tuuro wuxuu madaxweynuhu sameeyey rag xusbiyada ah oo cida oon awood u lahayn oo qaarkood aan xusbiga ku jirin inuu yidhaha heshiis baan la galay oo kulmiya la galeen taasna waddu inagu faraya inuu qofkii kastaba uu yidhaaho anaa somaliland anagu geliya heshiis oonay nidaam dowladeed madaxweyne muuse uu iska duuduubay madaxweyne wuxuu doonayaa inuu shaar leeyahay oo isaga ku saqa oo ku siman inuu somaliland u taluu doonaya laakiin waxaan leeyahay somaliland madaxweynuhu somaliland taas kama suurtogeli karto hayna tacab khasaarin baan leeyahay hayna tacab khasaarin maalinta caarinka la hadlayay ayuu yidhi cirkaa soo dumiya habar yoonis ninka ciidageliya halka galamaan ka geliyay hadda waxaan ku leenahay cirka haddaad soo dumisid adna meel ka gashaa male cirka inagu soo dumin aan ku leeyahay dhayr buugeyga waxaan ku hayo day by day waxaan kaala hadlayay arrintii caarey haddaan soo bandhigo somaliland maanta nabadda kuma jirtin laakiin da umul baan ahay umulis waxaa la yidhi waxbaan qarinna waxaan leenahay madaxweynaha wasiiradiisa shaqadii ka tegey ee hodheelada un ku baayacaya habeenkii ku gudiya ee qabiilka markuu kaxaysanaya imise wasaarad waa samaynaysaa intaasoo xildhibaan oo loo yeedhay wadareerkiina wasiir baa la siinaya baa la yidhi imise wasiir yaa samaynaysaa waxaana dalka inaga qaribin waxaa inoo yaalla laba arrimood oo muhiima inoo yaalla mid waxa weeye inay momentumkaa jira internationalka ee kiiskeeni meel kasta adduunka o dhan ka hadlayaan inaynu ku hawlgalno inoo gamcaysaysana oo aynu xuquuqdayni doonano inagu midaysan oo aynu momentumkaa ka faa'iidaysano midna waxa weeye soomaaliya oon jaar nahay oo qasan oon jirin doorasha ka socota doorashadaas jabuutaa ku jirta maraykan baa ku jira kenya ku jirta etoobiya ku jirta intuba danteeda ay ku jiraan saamaynta weyn innaga inagu leedahay inaynu arrintaasna aynu shaydaan naaranahoo inaanu halkaas soo fadhiisan caqli xumo kale oo farmaajo kale ah oo wixii loo doortay iloobo siduu somaliland u xandarmayngareen lahaa ka shaqeeya inaanu dib inoogu iman iyagana aan gacan siino dad wanaagsan u soo baxaan si aan laba wadano jaar ah u samaysan lahayn howlahaasaa inoo yaalla guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisu waa dadkeennii wasaaradaadii arrimaha dibaddu 6 bilood waa bilaa wasiir adduunkana dynamics ba ka socda hoonka waa ogtid waxa ka socda taas waxay kutusaysaa in marka hore aanay shaqayn jirin roads Somaliland road authority labadu way ka maqan yihiin taas waxay kutusaysaa in marka waddanka aanay shaqo socon waddankan bariigad u qabatay waan isku xishooneed shaqada adduunka waa ogtay maanta dhaqaalaheena halku mariyo maciishadii ba kor u kacday dadkeenu maanta 8% waxa lagu qiyaasaa waddan 4 waddan oo ugu faqiirsan ayaan ku jirnaa dadkeena niyad baa ku dhacay niyadu waxay soo celiyay isbedelka maanta shacabku footeeyay waanu ammaanaynaa shacabka reer Somaliland
isbeddelka waxaan leenahay kuwa ku soo baxay isbeddel gamcihiina ku burburina wixii laydin soo doortay ilaaliya integritkiina wanaagiina ilaaliya sharaftiina ilaaliya qarankiina ilaaliyaan leenahay